maamulka dugsiga sare Ibrahim Jaamac Hayliqin ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kormeeray isla markaana ka warbixiyay dhismaha dayr lagu wareejinayo dugsigaasi sare Ibrahim Jaamac Hayliqin oo muddooyinkii u dambeeyay dib u dhis iyo dib u habeyn lagu sameeyay dhismaha dayrka iskuulkaasi maamulaha dugsiga sare Ibrahim Jaamac Hayliqin ee magaalada Burco Maxamuud Axmed Gorse ayaa u mahadnaqay cid kastoo ka qayb qaadatay tabagelinta iyo suurtagelinta dhismaha dayrka lagu wareejinayo dugsiga Ibrahim Jaamac Hayliqin ee magaalada Burco waxaana ugu baaqay bulshada gobolka Togdheer in laga qayb qaato dhismaha dayrkaasi lagu wareejinayo dugsiga Ibrahim Jaamac Hayliqin ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa bihi nastaciinu calaa amri wadiin ilaahay waa mahad subhanahu wa ta'ala mahad labaadna waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan bahda iskuulkan Ibrahim Jaamac Hayliqin macallimiin arday iyo waalidba saaka waxaan joognaa iskuulkii farxadii weynida iskuulkan joognaa dhismihii baan ku jirnaa kontonki mitir xagga dambe ka harsanaa ee geedka dugsiga ahaa ayaanu saaka insha Allah ta'ala dhameystirnaa wadi ka arka shaqaalihii wuu ku jiraa haday tahay wastaadadii iyo kuuligiiba way ku jiraan shaqadii way socotaa insha Allah ta'ala geedkii marka qaybtii labaad ee xagga dambe ahayd way dhamaatay iskuulka dabadiisa way dhamaatay kadi ka yar imka marka la awdo saasay ku dhamaatay insha Allah ta'ala marka waa 70 waxaan ku leeyahay waa 70 mitir qaybta dhamaatay qaybtii koonfurta xigtayna waanagii hore u dhamaynay insha Allah ta'ala waxa noo hadhay waa north side-ka qaybta galbeedka xigta waqooyiga xigta ma noo hadhay insha Allah ta'ala halkaana insha Allah ta'ala waanu dhamayn doonaa taasna waa taa waxaan aad ugu mahad celinayaa Said Hafo oo contribution sibira ka qayb qaatay dhismahaas imika aan wadno insha Allah ta'ala aad iyo aad u mahadsanyiin Maxamed Guuleed Hawle Senyaale iyo shaqaalaha kale aad u mahadsan yihiin waxa uu maanta sana soo gaadhay inta kale waa jabkayaga insha Allah ta'ala waana dhamaystiri doonaa qaybta dababa haddaanu helno wax naga sabood gareey iyo haddaanu weynaba Khaliil Barra Uraan TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco.